waxaan filayaa muddo dheer baad meesha taagnaydeen imka hadda aan u hadlay waxa weeye inaan idinka mahad celinno sida qiimaha iyo qaayaha leh ee aad noo soo dhoweyseen runtii waa lagu yaqaanaa magaalada Dhahar inay dadka soo dhoweyso Sooriyada iyo martiqaadkan ugu darto anagu waxaanu wadnaa nabad waxaanu u nimi kormeer iyo indhayn muddana waan joogaynaa haddii Ilaahay idmo waxay ila tahay waad muujiseen rabitaankiinii Soomaalilaannimo aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin run ahaantiina waxaanu u soconnay waa deegaankan Dhahareed waxaana jirtay oo hadda ka hor aynu isugu nimi shir meesha la yiraahdo Ceergaabo odayaashii ka qayb galayna way fadhiyaan qaybahood shirka waxa ka soo baxay kumanakeygaasuna wuxuu ahaa qodobadii ay dadku codsanayeen oo ay kaga hadlayeen baahiyaha jira baahiyahaasi waxa loo kala qaaday laba qaybood qayb waxa lagu talagalay oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku talagalay inay sanadkan 2022 ay fulaan qaybta labaadna inay fulaan 2023 qodobadaas waa diyaarsan yihiin waxaan wadnaana waa iyaga iyo wixii la mid ah taas waa tan kale waxa jirta Soomaaliland waxay gashaa doorashooyin waxay gashaa isdiiwaangelin waxaynu ognahay dadka darfaha jooga inay dadka ugu badan yihiin dadka haddana waxa muujin la inay arag tiradooda iyo muxuu ahaa ay sheegeenay tayadooda inay muujiyaan dadkeenu ismana diiwaangeliyo mana codeeyo maanta horta marka ugu horeysa waxaan idinku soconnaa kulli waxa imanaya isdiiwaangelin baa imanaysa si mug iyo miisaan leh la isu diiwaangeliyo si aynu cid allaale iyo cidaynu doonayno u soo saarno waxaan kaloo idin xasuusinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hadduu ka hadlayo xaflad iyo hadduu ka hadlayo qalin jabin wuxuu ka hadlaa beelaha darfaha ah inay soo galaan ururada isla markaasna isu codayaanoo soo galaan xisbiyada had iyo jeer waxa la sheegaa 3 xisbi oo waxay ka jiraan Soomaaliland oo midna la yiraahdo Kulmiye midna la yiraahdo Wadani midna la yiraahdo Ucid waxa la yiraahdaa saddexdu waa isku beel si marka sida madaxweynuhu sheegayo loo bareejeeyo waxa loo baahan yahay inaad isdiiwaan gelisaan codka bixisaan waxa hadda inoo hirgalay oo gobolka Dhahar iyo Baran loo process gareeyay GBLG-gu waxa uu ka shaqeeyaa waa wadooyin laamiyo sariibado waxa loo baahan yahay markaa inagu haddaynu reer Dhahareed nahay waxaynu isla fahmaynaa dhulka qaybtiis inaan booyaduhu gelin inaan ambalaasyadu gelin inaan qofka xanuunsanaya laga dhex qaadi karin waxa dhici karta oo dhici doonta in wadooyinka magaalada Dhahar dhexdeeda laga samayn doono inay ku soo afbeeli doonaan guryahaas xirxiran oo dhismaheennii hore ah waxa loo baahan yahay markaa in lagaga shaqeeyo nabad GBLG-guna wuxuu ku shaqeeyaa dhul nabadeed maantana dhulkeennu waa dhul nabadeed waxyaabaha ugu badan oo aad weydiinayseen waxa ka mid ah gobolku wuxuu ku jiraa 2022 ayuu ku jiraa kuwa hadda miiska saaran ama hadda lagu dhawaaqi doono haddii Ilaahay idmo taana niyad iyo qalbiga u sheego oo u fura waxyaabaha ugu badan oo aad naga sugayseen buu ahaa sida wanaagsan oo qiimaha leh oo sharafta leh oo qaalinimada oo aad noo soo dhaweyseen oo hore la idinka bartana aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin maalmahana waa idinla joogaynaa qodobada kumanakeyga ku jiray ee loogu talagalay 22 wixii ka fuli lahaa insha Allah taala waynu u wada joognaa waa la fulinayaa. Salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. aad baan u mahadsantihiin.